dowladda waddanka Sacuudiga ayaa ogolaatay in waddankeeda lagu cabi karo khamriga uu sheegtay in uu nabi yahay yani nabi ayaan ahay buu yiri intuu meel soo istaagay baatahay saaxiibayaal maantay waa barnaamijkii warbixinadii trendedka ka ahaa caalamka asbuucii u dambeeyay waxa barnaamijkan mar walba idin soo gudbiya aniga iyo weba saaxiibka Yamyam haddii aan ugu cusub tahay fadlan channelka ku soo biir commentiga waa xarunta kaliya adiga aragtidaada ku daabactay barnaamijka laytana ka hilmaamina waa yahay nabi nimo ayuu sheegta waddanka Masar ninkan oo lagu magacaabo Abu Alhawl ayaa asbuucan aan ku guda jirno waxa uu sheegtay in uu nabi yahay yani nabi ayaan ahay buu yiri intuu meel soo istaagay barihiisa bulshadana waa ku soo qora yani aniga waddanka Masar iyo waddanka Hindiya dhacdooyinka ka dhaca aad baan uga yaabaa yani waxyaalo qariiba oo yaab la ayaa ka dhaca baraha bulshada waddanka Masar oo dhan ayaa isla kacay ninkan ugu dambeyn waxay la sheegay dawladdu inay xirtay ninkan markii taariikhdiisa la sii dabagalo horay ayaa mar dawladdu wax ku xirtay isagoo daroogo iyo mukhadaraad ka ganacsanaya ugu dambeyn sheekadiisii waxa uu ku soo afjaray in uu sheegtay in uu yahay nabi masaaridu sida ay uga falcelinayaan iyo commentiyaasha ku qorayaan baraha bulshada yaab ayaa ku dilaya qof halkan soo taagan oo horay loogu xiray mukhadaraadka iyo daroogada inuu ka ganacsado maantana sheegtay in uu nabi yahay arrin yaab leh waddanka Boortaqiiska haweeney ayaa hal mar dhashay laba mataan ah laakiin laba nin ay u kala dhashay yani midba nin ay u dhashay arintan waa arin dhif iyo naadir ah oo mar walba aan dhicin ee marmarka qaar dhaca warbaahinta Mareykanka ayaa iyaduna asbuucan waxay qoraysay arrin yaab leh oo aad la yaabi doontid shaqaale badan oo ka tirsan shirkadaha waaweyn ee tiknoolajiyada waddanka Mareykanka sida Facebooka, Google-ka, Amazon-ta, Microsoft-ga ayaa waxay bilaabeen inay isdheereeyaan shaqaalahan ayaa mid walba oo kamid ah wuxuu isku darayaa dhererkiisa wuxuu ku darayaa 7 sentimitir iyo bar sidaan la socono maanta waxaad awood u leedahay haddii aad tahay qof gaaban in aad isdheereysid oo yacni dherer aad isku dartid shaqaalahan ayaa cala qof markii uu rabo inuu isdheereeyo oo uu isku daro 7 sentimitir iyo bar waxa ku baxaysa lacag dhan 75,000 oo dollar shaqaalahan meelaha dhererka iskaga darayaan waxa kamid ah lugaha marka maxay tahay sababta isku dheereynayaan sida aan la socono shirkadaha waaweyn ee tiknoolajiyada wadamada reer galbeedka gaar ahaan Mareykanka dadka yani u badan ee ka shaqeeya waxa weeye hindidina qayb badan oo kamid ah waa dad gaagaaban sida daraadeed ayay isku dheereynayaan wuxuuna bixinayaa cala qofkii raba inuu isdheereeyo 75,000 oo dollar yani qaliinka wuxuu ku kacayaa 75,000 oo dollar khamriga iyo waliba Sacuudiga warbixin ay daabacday The Wall Street Journal ayaa lagu sheegay in dowladda Sacuudiga ay ogolaatay in baararka khamriga lagu cabo laga furo jasiiradda Sandala oo kamid ah magaalada Neom ee Sacuudiga ka dhisan arintan ayaa Sacuudiyaanku u sameynayaan si ay dalxiisayaasha u soo jiitaan dhaqaalaha waddanka u siyaado Wall Street Journal ayaa sheegtay in khamriga in la fasaxo ay keeni karto filcilin ay adag oo ay sameeyaan shacabka waddankaas oo ah dad diinta ku adag xubnahaaga taranka markii aad dhimato qof ma ugu tabaruci kartaa waddanka Masar isbuucan waxa ka taagneed dood ah ma xalaalba in qofku xubnihiisa taranka uu qof kale ugu tabaruco markii uu dhinto sida aan la socono waa iska caadi in qofku beerkiisa ama kaliyihiisa uu qof kale ugu tabaruco isagoo nool ama markuu dhintaba uu ka dardaarmo oo uu dhaho qofkaas ayaan ugu tabarucay ama mujtamaca ayaan ugu tabarucay laakiin dhaqaatiirta waddanka Masar ayaa doodan waddanka Masar ka taagneed ee ah isku tabarucida xubnaha taranka waxa ay dhaheen ma banaana oo waa xaraan waxa laga yaabaa bay dhaheen in isku khaldamaan ugxanta iyo xawada deedna halkaas uu ka yimaado in ay nasabka dadka ay isku khaldamaan yani laba nin haday xubnaha taranka isugu tabarucaan ama laba haween waxa laga yaabaa in uu meesha nasabkii iyo tarantii ay isku khaldanto arrintan waddanka Masar ka taagneed asbuucan markii aan akhrinayay waxa aad ula yaabanaa doodaha mujtamacaadka kale iyo adduunyada kale ay isku haysato iyo doodaha agteena yaala bal ka waran Soomaaliya doodaas hadii baraha bulshada maanta ay imaan lahayd ee ah xubnaha taranka dadku ma isku tabaruci karaan yani de Facebook iyo TikTok iyo waa isla waalan lahaa Soomaan laakiin halkan si yar oo tartiiba oo degan ayaa dhaqaatiirta iyo culimada diintu u cadeeyeen laba loo qubaysto haweeneyda ah wasiirka deegaanka ee dalka Switzerland Simonetta
ayaa ugu baaqday shacabka wadankaas inay laba u qubaystaan si loo dhaqaaleeyo korontada wadankaas oo guud ahaan tabarta nooceeda kala duwan. qaaradda Yurub ayaa gashay xaalad adag kadib markii Ruushka uu gaaskii ka goostay. arrintan ayaana baraha bulshada dhanka Switzerland aad loogu kaftamayo oo isugu dacaydeynaya. weligaa ma ku fakartay qof ku guuleystay bakhtiyaar nasiib ah 3 milyan oo dollar ayaa ka shalaynaya inuu ku guuleystay lacagtaas faraha badan. ninkan Indiyaanka ah ayaa maalin dhaweyd ku guuleystay bakhtiyaar nasiib dhan 3 milyan oo dollar. deedna hal mar ayuu caan noqday, warbaahinta oo dhan ayaa wareysiga ka qaaday, yacni hal mar ayuu cirka galay oo ay u kala kacda. ninkan ayaa markii hore wuxuu iska ahaa nin caadiya oo iska shaqaysta iska xamaasha, bishiina ku xisaabtama mishaar dhan 250 dollar. ninkan ayaa sheegay in hadda adduunyadii oo dhan ay ciriiri ku noqotay oo dad fara badan ay bariyo ula yimaadeen, yacni gurigiisina uu ka bixi laayahay. wuxuu yiri waxaan iska ahaa qof caadiya oo iska xamaasho oo nolol degan isaga nool. haddana wuxuu yiri magaaladii oo dhan iyo qaraabadii oo dhan ayaa ay raadinaysaa, qof walbana wuxuu weydiisanayaa kaalmo dhaqaale. wuxuu leeyahay war ninkii lacagta ku guuleystay baa tahay noo kaalme, war lacagta wax naga sii, yacni ciriiri baan galay buu yiri oo gurigii oo dhan waan ka bixi la'ah. waa run oo waxay ku wanaagsan tahay qofku markii uu hanti fara badan helayo hantidaas faraha badan inay u soo gasho si tartiib ah. tusaale ahaan inuu $1,000 helo, deedna 2,000, deedna 5,000, deedna 10,000, deedna 100,000, deedna milyan, deedna bilyan. laakiin qofkii iska maskiina oo halka degan oo iska xaaladiisu ay caadi iska tahay boosto haddii hal mar farta laga saaro 3 milyan oo dollar ama lacag aad u fara badan, dee maskixiyan buu wax u noqonayaa. dadkii ku dhadhawaan intay la imbihaaraan oo ay la yaabaan ayay culays iyo daqdi soo saarayaan. ninkan arrinta ayaa ku dhacday. dabcan sidaan aaminsanahay ninkan kama cabanayo 3 milyan ee ku guuleystay ee uu ku faraxsan yahay, laakiin waxa uu la yaaban yahay culayska iyo ciriiriga soo fuulay. haweeney ayaa wiil yar oo 13 sano jir ah waxay biyaha ugu dartay sun, deedna wuu dhintay. sababta ay sunta u siisana waxay ahayd wiilkan yar ayaa ahaa qofka kaliya ee wiilkeeda ka sareeya xagga natiijada kalaaska markay noqoto, yacni wiilkeeda ayuu kaalinta koobaad mar walba ka geli jiray. waayahay asxaabta, maantay barnaamijkii aan ku fiirinaynay aniga iyo weliba saaxiibka Yamyam warbixinadii caalamka trendedka ka ahaad ama dunida اسبوعي لا soo dhaafay intaasaan kusoo gabagabeynayaa. inta aan barnaamijkan la mid ku kulmayno wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya Soomaaliya social media leh This one here